السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وانكو سلامي داوودي halkani waa daraja media ku soo dhawow wararkii ugu dambeeyay ee bariga dhexe warar waaweyn ayaan idin hayaa Iran oo xalay dhigtay wacrada la yaab ku noqday Israel iyo Mareykanka sidoo kale Tehran waxa lagu qabtay laba basaas oo la sheegay inay ka dambeeyeen dilkii Allah u naxariistay Ayatollah Ali Khamenei maxaad ka ogeen oo ka dhacay bariga wadanka Suuriya kooxaha Kurdiga ah ee ku nool bariga Iraq ma waxay duulaan ku soo qaadayaan Iran maxay tahay sirta qarsoon ee ku duugan iyo wararka sheegaya in Putin uu ka qayb qaadanayo dagaalka Iran ay kula jirto Israel iyo Mareykanka dhammaan qodobadaas iyo waxyaabo kale oo ku saabsan xaaladda bariga dhexe ayaan ku soo gudbin doonaa waxaan kale kula wadaagi doonaa wararka ku saabsan arrimaha Soomaalida iyo wixii hadba wararkaasi naga soo gaaray ee soo dhawow haddii taa markii ugu horeysay ku soo biiro daraja media waxaan ka codsanayaa muuqaalka hadduu ku soo gaaray like sar u ducee walaalahaaga reer Iran si ay guul Ilaahay u siiyo waxaan ku bilaabayaa dabcan qodobkeena ugu horeeyay ee Iran ayaa xalay waxay dhigtay wacdara la yaab ku noqday Israel iyo sidoo kale Mareykanka gantaalka la yiraahdo Fatah labo iyo sidoo kale diyaaradda la yiraahdo Shaheed 12 waxay xalay si weyn u burburiyeen kaabayaashii dhaqaalaha magaalada Tel Aviv ee caasimadda Israel warar iyo macluumaad la helayo waxay tilmaamayaan in madaxyo waaweyn oo qaraxyo ah si weyn looga maqlay bartamaha iyo koonfurta magaalada Tel Aviv halkaas oo kala carar xoog leh oo ka dhacay Israa'iiliyiinta wali waxay ku dhuumanayaan dhulka hoostiisa haddana waxa muuqaalo iyo sawirro la soo qaaday ay muujinayaan iyaga oo ku hoos jira tareenada dhulalka hoostooda mara halkaas ayay naf ka raadiyeen Iran xalay waxay sameysay wax la yaab leh wax aan weligeed la arkin wax aan weligeed taariikhda gelin iyo wax aan weligeed taariikhda dib dambe u soo mari doonin tusaale yar ayaan ku siinayaa waxay xalay Iran Tehran ka soo gantay 5 gantaal oo 3 kamid ay yihiin noocyo hal gantaal ka sameeysan laakiin bartilmaameedku markuu uu soo dhow yahay noqonaya dhowr qaybood yani halkii gantaal baa wuxuu noqonayaa ku dhawaad 10 madax oo kala duwan bartilmaameedyo sax ah oo ku yaala bartamaha magaalada Tehran iyo daafaheeda ayaa la burburiyay Mareykanku inta uu dagaalku socday waxa la leeyahay wuxuu qasaaray 1 bilyan oo dollar waxa Mareykanka laga gubay dhammaan saldhigyadii uu ku lahaa bariga dhexe laga soo bilaabo Qatar lagu xujiyo Saudi Arabia lagu xujiyo Bahrain lagu xujiyo Imaaraadka Carabta dhammaan saldhigyadaas waxay noqdeen kuwa howlgab ah oo wax shaqo hadda aan qaban karin sababta aan sida ku leeyahay waxa ay tahay in Iran ay isticmaalayso tiknoolajiyad iyo dayax gacmeed uu leeyahay Ruushku sargaal sare oo ka tirsan waaxda dagaalka ee dalka Mareykanka ayaa wuxuu yiri aad iyo aad baan uga xunnahay in Ruushku uu Iran ku taageerayo bartilmaameedyada aan kaga sugannahay wadamada bariga dhexe sargaalkan wuxuu sheegay inuu Mareykanku qaadayo tallaabooyin dheeraad ah oo lagu wiiqayo awoodda Iran laakiin markii aad eegtid xaaladdu sida tahay bilow ilaa dhamaad waxaad arkaysaa sida ay Iran xilligan ugu guul daraysatay in ay yani sida Iran ugu guuleysatay aan dhahe in ay bartilmaameed sax ka dhigato fariisimaha ciidamada Mareykanku ay ku sugan yihiin sida si lamida war 24 saac la soo dhaafay soo baxay oo waliba warbaahinta reer galbeedka qaarkood ay qorayaan ayaa waxa uu sheegayaa in gacanta lagu dhigay Ismaaciil Qaani taliyaha guud ee ciidamada Qudus kaasi oo tiro ka badan 5 jeer ka badbaaday weerar lagu laayay madaxda ugu sareysa Iran warbaahinta reer galbeedku waxay qorayaan in ninkan laga shakiyay oo xabsiga la dhigay baaritaanana ay ku socdaan ninkan wuxuu ka badbaaday weerarkii lagu dilay sargaalkii ugu sareeyay ururka xisbiga ee Lubnaan kaasi oo la sheegay inuu weerarkaasi ka badbaaday sidaas si lamida wuxuu ka badbaaday dilkii loo geystay Allah u raxmadee Ismaaciil Haniya madaxii siyaasadda xogaga Hamas wuu ka badbaaday wuxuu sidoo kale ka badbaaday 12 bari dagaalkii socday ee Tehran ka dhacay Israa'iil iyo Tehran u dhaxeeyay weerar saraakiil lagu laayay ayuu ka badbaaday hadda weerarkii ugu dambeeyay oo ka badbaadayna wuxuu ahaa weerarkii lagu dilay Ayatollah Ali Khamenei hogaamiyihii guud ee ruuxiga ahaa ee wadanka Iran
dhacdooyinkaas oo dhan in saraakiisha lagu laayay isaguna uu ka badbaaday dabcan waxay keentay tuhun ah malaha ninkan waaba basaas u shaqeeya Israa'iil maxay tahay sababta uga inkastoo qadar ay tahay oo qofku tiisa marka ay soo dhamaato uu dabcan dhimanayo haddana waxa la isweydiinaya waxay tahay sababta ay mar walba uga badbaadayo weeraradan oo ah kuwa isdaba joog ah oo waliba bartilmaamee sax ku dhacay waliba ragii isaga la joogay way dhimanayaan Ilaahay u naxariistay isna weerarku ka badbaaday warbaahinta reer galbeedku marka waxay qorayaan inuu jiro baaritaan ninkan ku socda oo ku saabsan weeraradan uu ka badbaaday siday wax yihiin xaaladdu sidee yaani dhammaan arrimahaas oo dhan inkastoo warbaahinta Iiraan iyo xulafada taageero ee Ruushka iyo Shiinuhu ay ku jiraan aysan dhacdooyinkan ka hadlin haddana dabcan warkan waa mi soo baxaya geesta kale banaanka magaalada Tehran ee caasimadda Iiraan waxaa lagu qabtay 5 nin oo u shaqeynaya Mossad waa hay'adda sirdoonka ee Israa'iil raggan waxaa la qabtay iyaga oo sawiraya muuqaalana ka duubaya bartilmaameedyo ku yaala gudaha wadanka Iiraan waxaana la sheegay in raggan hadda maxkamad la soo istaajin doono kadib hadii lagu helana gantaal inta lagu xiro dhinaca Israa'iil loo toori doono يعني waxyaabahan ay hadda Israa'iil la yaaban tahay waxay tahay gantaaladan balastiig ah nooca fatax laba la yiraahdo iyo diyaaradahan shahiid la yiraahdo ee isqarxiya Iiraan ay leedahay dhammaan waxay ku socdaan bartilmaame sax ah dhammaantood waxa la soo warinayaa in aysan beeldaroobin oo meel cilaa aysan ku dhicin intii ay socdeen dhammaan hawlgallada ka dhanka ah Israa'iil oo Iiraan ay fulinayso fiiri Iiraan mabda'a ay leedahay ku sheegaya mabda'a Iiraan leedahay waxa ay rabtaa waxa waaye inaan iyada waxna loo meerin waxna loo akhrin iyadoo waxay rabtaa in wixii wada hadal lagu dhameeyo hadii wada hadal arrintu ay noqon weydana aysan ka tanaasuleen barnaamijkeeda nuclearka sidaas si lamida Iiraan waxay diidan tahay in Mareykanku wax u meeriyo sargaal sare oo ka tirsan ciidanka ilaalada kacaanka Iiraan wuxuu yiri ilaa keena ugu dambeeya oo ka dhimanayo madaxa hoos dhigi meeno wax heshiisana ma jiro xaaladdu halkaas ay maraysaa mid kale wixii xalay ku dhacay Israa'iil ee aan baraha bulshada la soo galiyay oo dabcan halkan ay kula wadaagayo waxay ahaayeen wax intii adduunka la saarnaa aan hore loo arag horena loo maqal wixii ku dhacay Israa'iil waxaa la leeyahay nimankii madaxweynaha ahaa oo taliyihii military ku jiray taliyihii Mossad uu ku jiray waxaa la leeyahay dhulka hoostiisa galeen dhulka hoostiisa loogama harina madaafiic iyo gantaalo sida roobka u soo daadanaya ayaa la leeyahay waxay ku dhacayaan bartilmaameedyada saxda ah ee markaas ay ku sugan yihiin kooxda Iiraaniyiin ama waa kooxdan sahnuuniyada ah Mareykanka iyo Israa'iil ay taageeraan dhinaca kale dayax gacmeedyada Ruushka iyo Shiinaha Iiraan waxay siiyeen xog rasmi ah oo ku saabsan saldhigyada Mareykanka qaabkay u shaqeeyaan halka ay joogaan nidaamkay u howlgalaan bartilmaameedku halku noqon doono xog sax ah oo aan khaldamayn oo aan been iyo wax kale aysan ku jirin oo sax ah ayaa la siiyay nimankii iyaga ahaa Iiraan ahaa marka Mareykanku wuxuu leeyahay Ruushka dagaalka qayb buu ka yahay oo saxo Ruushka iyo Iiraan isxulafays ballaaran baa ka dhaxeeya marka inuu Ruushka dagaalka toos u soo gala ma rabo wuxuu rabaa oo kaliya laakiin dhinacii tasiilaadkii dhinacii hawlgalladii dhinacii maxay tooy wax walba oo loo baahnaa in ay arrimahaas oo dhan ka habaqatiraan bay rabaan hadda nimankan la yiraahdo Iiraaniyiintu marka horumar weyn oo la taaban karo oo 100% ah bay hadda Iiraan maraysaa sidaas si lamida saraakiil fara badan oo gudaha ciidamada kacaanka ku jiray ayaa la qabqabtay kuwaas oo iyagana laga shakisan yahay baaritaanadooduna way socdaan sida xoguhu tilmaamayaan sidaas si lamida waxaa jirta aragti la xiriirta in si degdeg ah loo doorto hogaamiyaha guud ee ilaalada kacaanka Iiraan ama hogaamiyaha guud ee Iiraan kaasi oo la leeyahay wuxuu ka imaanaya ama noqon karaa wiilka uu dhalay Ayatollah Ali Khamenei geeriyooday kaasi oo dad badan leeyihiin wuxuu ahaa nin weyn oo qiimo leh oo Mareykanka iyo Israa'iil shaqo fiican ka qabtay isla markaana ka qayb ahaa dagaaladii ugu dambeeyay ee lagu wiiqay awoodda Israa'iil
meel bannaan ay ku dhacday wadamada khaliijkana waxaa la leeyahay wadamada khaliijka laftirkooda xaaladdu aad bay ugu xun tahay macluumaadyada soo baxaya waxay leeyihiin wadamada khaliijka in ay gacanta la galaan ama ay gacanta ku dhigaan ama saldhigyada Mareykanka ay iska saaraan bay hadda qarka u saaran yihiin sababtoo ah xaaladdu waxay maraysaa meel allow sahal ah xaaladdu waxay maraysaa meel bariga dhexe ah jawgu wuu qasan yahay guushan waxaan u rajaynaynaa walaalaheena Iiraan haddana la dhamisatay sharaf iyo karaamo muuqaalka inoo leegare aragtidaada qaybta commentiga inoogu reeb soo dhawaada saaxiibayaal meel kasta oo aad joogtaan sharaf iyo karaamo